hadalkii hanjabaadu ka muuqday madaxweyne Sheekh Shariif oo halkaas ka jeediyay muxuu kula muuqday horta waxa la yiri hadalka laba suulan nibasi ku ah ama hadalku waa margi nin waliba meeshii uu bugtay ama maaragtay isagu uu daneynayay buu uga faa'iideystay qof diyaarad la ridi gaaray iyo ama dad la halaagi gaaray ba hadal lagu yiri horta arintaasi waa mas'uuliyad darro kale iyo ixtiraam darro isku jira waana boor isku qaris in khudbad dheer oo meelo badan taabatay oo wax badan ka hadlaysay kelmad ku jirtay oo ahayd haddii sharciga loo hoggaansami waayo sidii qolyihii Itoobiyaanka iyo dagaal ogayaashii iyo al-shabaab looga saaray meesha ayaa looga saarayaa hadalkaasi waa in la fiiriyo horta marka la qiimeynaya hadal between the lines baa la akhriyaa hadalkaana jumlooyinka uu ku jiro maxay ka turjumayaan laakiin hadal kaligiis inta laga soo dhex saaro hadalku ka mid ahaa oo keligii gaar loo fasiro taasi waxa weeyaan waa ujeedo qaloocan oo maaragtay runtii aan sax ahayn xagee marka maxuu yahay tusaalaha la soo qaatay oo lagu xiriiriyay xukuumadda federaalka waxa la soo qaatay Ethiopian waxa la soo qaatay nimankii warlordska ahaa ee dalkan la ogaa dhibaatadii ku soo dhigeen iyo al-shabaab waxa la sheegay inay ummaddu ka dhidiyeen oo ay iska saareen saddexda qolo oo aan sharciga ku taagnayn maxaa marka ay tahay ka shabahaysaa marka dawladda federaalka waxay ka shabahaysaa dawladda federaalka ama xukuumadda laanta fulinta waxa lagu doortay sifo sharci ah waa legitimate waxay ku joogaan sharci la isla wada ogol yahay oo xoog kumaysan imaan okay haddii sharciga lagu doortay ay tuuraan oo dhinac iska dhigaan oo ku dhaqmi waayaan oo kaliya ay la soo haraan xooggii iyo ciidamadii iyo authority-gii la siiyay ay la soo haraan oo dadka ku abuse gareeyaan macnaheedu waxay ka tageen wixii lagu xaq dhowrayay ee sharciga ahaa waxay la mid noqonayaan dadkii aan sharciga ku dhaqmayn ee xoogga kaliya dadka ku jajuubayay ee dagaal ogayaasha iyo shabaabka iyo Itoobiyaanka ahaa ee sharci darrada dalka ku yimid ayay la mid noqonayaan inta ay sharciga dhowrayaan waa dawlad la wada leeyahay waana wixii loo doortay waana sax meeshaan iyada ah waxaad arkaysaa in kharash aad u fara badan oo Soomaaliyeed ay xukuumaddu ku bixisay in ay hadalka rogaan oo si uusan ahayn ay u fasiraan oo ummadda Soomaaliyeed oo dhib badan soo maray oo dagaalo sokay ay soo halakeeyeen oo xanuunkii wali maskaxdoodii uu ku jiro iyo jirkoodaba la xasuusiyo oo la yiraahdo waa idin bixinayaan nimankan ay sheegayaan dagaal sokay soo wadaan dagaal qabiyaaleed bay soo wadaan arinta iyada ahi waa qiyaas aan jirin oo faaruq ah waa wax aan shaqaynayn waa wax dadka caqliga leh ama wax garadka ah ay fahmi karaan in ma waxa qabiil ka shaqaynaya marka qof hadlo oo caawa bil mesela ana hadlaya hebel baa hadlay yey isku reer yihiin oo lacag la siiyay ka daba hadlo oo warkiisa warka duwan sheega oo ummad maaragtay nooca u dhaqmaysa miyaa qabyaalad ka shaqaynaysa mise waxa qabyaalad ka shaqaynaya qofka la og yahay historygiisa marka dib loo fiiriyo ma aha qof qabyaalad ka shaqeeya taariikhdiisa ma ku jirtaa inuu soo dagaalamay ma ku jirtaa inuu maaragtay wax case noocaas ku lug leeyahay maya marka taariikhdii hore iyo waa in la isla akhriyaa hadda waxa jooga in la saaro xukuumadda wajiyo badan baa xukuumadda lagu saari karaa waxa kamid ah baarlamaanku inuu kala noqdo kalsoonida waa la saaray xukuumaddii waxa kamid ah bulshadu in ay inta ku mudaaharaado sidii maaragtay Suudaan hadda ka dhacday oo maaragtay General Umar Bashir lagu tuuray in la isaga tuuro sababtoo ah bulshadu waxay kugu dhiibatay oo kugu aamintay haddaad ka soo bixi weydo oo dulmi iyo hagardaamo iyo caawimo la qaadi maayo ay arintu marayso bulshadu in iska ka tuurto xaq bay u leedahay waa kamid iyada laftigeeda optionska haddii bulshadu ay damacdo si silmiya inay kugu dawladda ay iskaga wareejiyaan maadaama wixii loo igmada ay ku fashalatay oo ay la timaado marka awood military inay isticmaasho dadku inay iska caawiyaan oo qori qaataan
waa wax dhici kara wey. laakiin waxaan rabaa inaan iraahdo xukuumadda oo la bedelo oo la tuuro iyo qaranka Soomaaliyeed kala dhig ma aha. qaranku waa jiraya, qaranku waxa weeyaan waa wax thaabit ah oo dadku isla wada leeyahay. xukuumadda faasidka ah oo wixii loo igmada ka shaqeyn weyday waa la bedeli karaa bi ana minis. waxa kale oo jira meeshaan waxaan rabay inaan iraahdo meeshaan xukuumadda mu oran karto dagaal sukeeye sababtoo ah xisbiyada siyaasadeed ee qaranku ma hubaysna, ma aha xisbiyo qori wata, waa xisbiyo ku doodaya sharciyad iyo sharcigaanaan wadanaa ee kaynu ku heshiino weeye aynu ku wada dhaqanno. qofkii diida in la iska qabto wax diidaya iyadoo hub la isku adeegsanin xisbiyada iyo xukuumadda wax walba oo tabashaha in miiska wada hadalka lagu dhameeyo maxaa hortaagan? waxaa hortaagan xukuumadda hortaagan. sidee waxay u hortaagan tahay waxa weeyaan conceptigii waxay aaminsan yihiin la oran jiray either with me or against me. waa inaad raacdaa ama waxa weeyaan waa ku dilaya. waxa weeyaan wax wada hadaleysa waxaan kugu daliilaysa wax wada hadal ogolayn. waxa kugu daliila maamul goboleedya wadanku leeyahay ka tirsan dawladda federaalka ah oo dadka stakeholderska ka tirsan way burburiyeen, way kala irdhoobeen. meelihii amniga ahaa sida Puntland iyo waxa la midka ah baan ognahay shaqaqooyinka ay ka wadaan iyo maaragtay majaxaabinta ay ku wadaan. iska badaa waxa ay galmudug ku sameeyeen, iska daa waxay South West ka sameeyeen, iska daa waxay Jubaland ka sameeyeen. marka hadday wada hadal ogol yihiin ummadda oo dhan saa looma kala direen. maamul goboleed gacan laguma hayo, xisbiyadii siyaasadda gacan laguma hayo. cid ay xukuumaddu wadato ama ay rabto ama ay wada hadal ugu yeertay lamana arag, mana aanan maqalo namay soo dalban annaga. aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha xisbiga Himilo Qaran Xildhibaan Suleymaan Maxamuud Xaasho martii noogu ahaa barnaamijka dabagalka waran.